gudoomiye su-aasha ugu dambaysan ku weydiinayo waxa weeye madaxweyne mustafe maxamed cumar maxaad kula talin lahayd mustafe waa madaxweynaha kilalka ama ogaadeniya waa nin dhalinyaro oo aqoon-yahana ma lihin choice kale oo runtii aynu ku talino inagu ma lihin waajibaadkiina hor yaalla aad iyo aad buu u ballaaran yahay waajibaadkiina hor yaalla ee koowaadna waxa weeye xuquuqdeedii oo dhammaystiran inay hesho yaa kow ka ah xaqiiqda arrintaas sidii lagu dhammaystiri lahaana waxaan qabaa in ummaddu ay u midowdo marka waxaan runtii ku talin lahaa in madaxweyne mustafe uu ku dadaalo sidii uu u midayn lahaa dowladdiisa iyo maamulkiisa jabhadahana uu soo dhoweyn lahaa isagiyo jabhaduhu ay yani inay midoobaan oo mid ay noqdaan sidii ay u raadiyaan ummadda soomaaliyada xornimadooda si loo raadiyo ama nabadgelyo ha lagu raadiyo ama si nabadgelyo darra ha lagu raadiyey in jabhadaha iyo maamulka jira mataqaanaa jabhad inay midoobaan oy raadiyaan sidii ummadda soomaaliya hadafkeedii asaasiga ahayd ee qaranimada ahayd in ay u helaan taasaan anigu runtii kula talin lahaa